السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا ولا ليال جنكين وحلبة كريبتو ولكن محمد جامع إن شاء الله فيديو يكون حكا هذا دونا أريما آدي مهمة ولا لها كريبتو كارنسيga ku cusub aan isleeyahay way ka faa'iidi doonaan insha Allah موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay qaladaadka walaalaha cusub ay ku dhacaan taasoo insha Allah dhowr qodob aan uga digayno qaladaadka oo shakhsi ahaan anigu aan soo maray aan doonayo walaalaha cusub in la share gareeyo si aan eeguna ugu dhicin oo ay ugu badbaadaan insha Allah laakiin intayna bilaabin walaalahay waxaan ugu codsan lahaa like-ta iyo share-ta noo badiya سأد إن شاء الله وحول بكريبتو كوسابسن ودوغا فايدان قالت كو هوريه walaalaha cusub ay ku dhacaan waxa weeye eego raadsanaya had iyo jeer coin aad iyo aad u raqiisa coin-ka oo eeguna ay ka filanayaan inuu meel sare uu qaaliya inuu gaari doono mustaqbalka kaasina waa fikir saxsan laakiin coin-an baa jira aan weligood area-da ay doonayaan inay ka qaataan aan dhaafinba fikradda qaldan ay suuqa ka haystaan waxa weeye coin yar ban iibsanaya oo meel yar jooga kuwa waaweyn qaaliga ana iibsan maayo laanu faa'iido badan qofkaasi wuxuu u maleynayaa inaanu ka sameeynin suuqa taasina waa fikir qaldan fikirkaana insha Allah laga taxadiro coin-kad iibsanaysa waa inaad u soo samaysid research waa inaad soo baadhid teamkiisa mashruuciisa mustaqbalka waxa loo yiraahdo road map waa inaad soo akhrisid si aad u ogaatid mustaqbalka waxay plan gareynayaan iyo waxay doonayaan inay ku soo kordhiyaan caalamka cryptocurrency-ga insha Allah kaasina waa qaladka ugu horeeya qaladka labaad ee walaalaha cusub ay ku dhacaan waxa weeye coin all time high gaadhay amba wax loo yaqaano meeshii ugu sareysay coin-kaasi uu gaadho iyagoo ka iibsanaya taasoo marka hore ay iibsanayaan aanay baadhin coin-ka wuxuu yahay iyo area-da uu marayo imaka had iyo jeerna qaladaadka dadka ku dhaca waxa ku dhaca waxa la yiraahdo FOMO amba loo yaqaano fear of missing out coin-ka oo qofku uu rajaynayo inuu sii kici doono uu ka baqayo in laga tago amba uu dhaafo coin-kaasi taasina waa qaladka labaad had iyo jeer hal iska digo coin-ka markaad eegaysid waa inaad eegtid meesha ugu hooseysay uu gaadhay iyo meesha ugu sareysay uu gaadhay hadduu meel hoose uu joogo uu coin wacan uu yahay hoostaas wacan had iyo jeer laga qaato insha Allah qaladka saddexaad ee walaalaha cusub aan uga digaya waxa weeye coin-ka ay iibsadeen markuu hoos u dhac yar uu ku yimaado inay iska iibiyaan iyagoo ka baqaya coin-ka ay iibsadeen inuu zero uu gaadho weligeed suuqa caynka muu hayn suuquna marna waa up marna waa down marka walaal coin haddaad iibsatay iska hayso ayaan ku odhan lahaa haddaad lacag dheeraadaad haysatidna markuu boqolkiiba 50 uu soo daato dib u sii iibso oo halka wax loo yaqaano dollar cost average ku samee meel dhexdhexaada hadii jeer area-dad ka gashay ka dhig taas insha Allah mustaqbalkana tusaale ay inaga soo qaadanaya si aad u fahantaan laakiin iska diga in coin aad iyo aad u sarakacay inaad iibsataan qaladka afraad ee walaalaha cusub ay ku dhacaan waxa weeye coin aanay mashruuciisa aanay soo baarin coin-kani ma xalaalba ma xaraamba coin-kan muxuu ka shaqeeyaa hadduu coin-kani u socdaa mashruuciisu waaxay mustaqbalkiisa taa garamayaan halku coin-kaasi ku dambaynayo marka arrintaana aad iyo aad iskaga digtoonaada mar walba research ku sameeya coin-ka doonaysaan inaad iibsataan qaladka shanaad ee walaalaha cusub ay ku dhacaana waxa weeye lacagtoodoo dhan ayay doonayaan inay coin quraata ay ku shubaan taasina khatarteeda ayay leedahay waxa wacan had iyo jeer inaad lacagtaada aad u qaybisid 2 ilaa 3 ilaa 4 coin ugu badnaan 4-3 inaanad ka badnaysiinna waa arrin aad iyo aad u muhiima waayo maalin quraata hadduu suuq soo daato oo 20% maaragtay coin quraata kula soo daato intaa in la mida inay ayaguna soo daadanayaan oo halkaa lacagtaadii guud oo minus weyn ay ku dhici doonto arrintaasna aad iyo aad bay u muhiimsantay had iyo jeer coinankiina u qaybiya coinanka waaweyn iyo coinanka dhexdhexaadka ah iyo coinanka yaryar qaladka lixaad ay walaalaha cusub ay ku dhacaanna waxa weeye wax loo yaqaano invest for the sake of invest waxay ka dhigan tahay maalgashi aad samaysid laana waxaad doonaysaa inaad iska maalgashatid wax waayo hebel iyo hebel bad aragtay iyagoo wax maalgashaday aadna waxaad leedahay sidooda kale wax u maalgeli adigoo wixii aan waxbaba ka ogeyn marka cilmigu waa muhiim waxa aad maalgashanaysidna waa inaad ogaataa wuxuu yahay qalad toddobaad in doonaya la wadaagan waxa weeye not taking profits taasuna ay ka dhigan tahay coin bad gashay boqolkiiba boqol buu sare kugu kacay boqolkiiba boqolka uu ku siiyey profitkaagii kalamaad bixin amba faa'iidadaadii kalamaad bixin taasina khatarteeday leedahay mar walba uu coinku kuu kaco boqolkiiba boqol amba boqolkiiba 50 wax had iyo jeer kala bax amba lacagtaadaad ku gashay investmentkaad ku samaysay kala bax oo inta kale ha ku jirto ha ku socdaan laana suuqan iskuma haleyn kartid maalin iyo habeen buu kugu soo daadan karaa marka had iyo jeer lock in your profits waxa la yiraahdo profitkiina qaata oo meel dhigta insha Allah qalad sideedaad ugu dambeeyno hayno waxa weeye ay walaalaha cusub had iyo jeer ay ku dhacaan ma qoraan coin-anka ay galeen iyo eriyooyinka ka galeen taasina khatarteeda ay leedahay mar walba aad coin-ad galaysid waa inaad qortid
areadaad ka gashay, waqtigu ahaa, priceku halku marayay, iyo xitaa sababtaad u gashay iyo targetkaad ka rajaynaysid inuu kuu gaadho coinkaas. taasina waa qodob aad iyo aad u muhiima. had iyo jeer coinkaad gelaysaan waa inaad qortaan oo journal waxa la yidhaahdo aad ku qortaan insha allah. intaasan walaalayaal inii hayni maanta, waxaan u malaynayaa in qodobada aad ka fahanteen wax oo aanad ka faa'iideen. khayr badan bay nii rajaynayaa iyo guul ina suuqana insha allah aad ka gaadhaan. aad iyo aad baan nii salaamay. wixii commenti aad qabtaan comment sectionka hoose noogu soo qora insha allah. inkoo mahadsan. salaamu calaykum waraxmatullah.